Karibu Mombasa. And the purpose, who we are, what we want to be, where we want to go. qalkeenan maanta waxaynu kaga hadlaynaa safarkii aan ku tagay Mombasa iyo yaxaaskii aan la soo kulmay. Waxaan sidoo kale kaga hadlaynaa safarkaygii aan ku tagay Rwanda. Waxaan sidoo kale kaga hadlaynaa buuggii igu saameynta badnaa bishii la soo dhaafay. Muuqaalkan waxaa sponsor gareeyay Canva waa app game changer ku sameeyay dhammaan graphic design industry. Waagii hore waxay ahayd inaad baratid Photoshop, waxay ahayd inaad baratid Illustrator, waxay ahayd inaad baratid dhammaan software-ada loo isticmaalo si aad design u samaysid. Laakiin Canva waxa ay leedahay boqolaal iyo kumanaan kun oo template oo kuu saamaxaya inaad design samaysid adigu. Maanta dunida loo nolaaday design kama maalim karis. Haddii aad business haysatid iyo haddii aad qof caadi tahay oo social media ama Instagram wax soo bas koranaysid. Hoosta ayaan linkiga nii dhigay dhamaantiin. Qof kasta oo linkiga isticmaala wuxuu leeyahay 30 cisho oo free ah una lacag bixineen. muddadii 3 bilood ee ugu dambeysay waxaan ku sugnaa magaalada Nairobi saaxiibkay Bashaar Dheere oo shirkii Biljam ee Somali online business aan ka soo wada qayb galnay ayay igu yiri ilaa wayna Nairobi isku keentaa deeto cabaar waxaan ka yar cagajiiday markii dambe waan ka yeelay waxaan isla hadda markaad imaanaysay 2 week ama week bad joogi doontaa meeshaadii baad ku noqon doontaa deeto week markaan joogayba markaan arkay hawada ka jirta markaan arkay dadkooga iyo dad dhaqankooga markaan arkay facility-ga iyo service-ka ay leeyihiin waxaan aad u jeclaaday inaan sii dheereysto in cabaar maadaama shaqadaydu ii saamaxayso inaan adduunka meel kasta kaga shaqeeyo maadaama shaqadaydu inteeda badan ay tahay online waxaan sii jeclaystay inaan dheereysto waqtigii aan joogay Mombasa maxaan kala kulmay bishan bilowgeedii waxaan booqday magaalo xeebeedka ku taala Indian Ocean-ka ee Mombasa run ahaantii magaaladaas intii aan joogay waxyaabo kala duwan baan arkay waxyaabahan ku jecelahay inaan safro oo meelo kala duwan arko koonka iyo ilaahay sidoo u qurxiyay oo quruxda u dhigay waxba ka barta mararka qaar kood ma jecli inaan bas iyo waxyaabaha qaato wadamadan tago waxaan jecelahay inaan lugusaga dhexmaro on experience gareeyo on la dhamiyo dadka deegaanku saybay u nool yihiin nolosha meesha ka jirta waa sidee marka waxaan sameeyay ilaa saacad iyo badh meelahaas ayaan aad u lugeeyay deeto waxaan dhex socday magaalada dhex socday waxyaabaha cajiibka ayaan ku arkay waxa kamid ah basaska oo kula hadlaya oo ku boobay oo kornay soo kor anaga raac anaga nala soco waxyaabaha kale cajiibkan aad ku arkay waxa kamid ah dadyow hidihii iyo dhaqankii wadankan Kenya xiran oo iibinaya alaabtii hidihii iyo dhaqankii inta wadadan soo marayay waxaan u fiirsanayay dhadhanka iyo siday leedahay maalinkii ku xigay waxaan tagay Haller Park halka laga galay waa kan Haller Park barada meesha wana badan baa ku nool soo daawanayna marka Haller Park waa park ku yaala magaalada Mombasa oo lagu hayo xayawaano oo markii ugu horeysay aan arkay halgari markii ugu horeysay aan arkay yaxaas wuxuu daanyar way joogan jeer way joogtay laakiin waxyaabo aad ku cajiibkan aad wala dhex baxay wax kamid ah yaxaaska beer bay sameeyeen yaxaaska ku dhaqaan dan markay 4 galabnimo gaadho ayaa yaxaaska hilib loo tuuraa hilibkaas caadi ahaan looma siiyo laakiin bishiiba hal mar ayaa uu yaxaasku cunaa maalmahan kaliya waxa lagu tusayaa dadka sidii uu cuni lahaa iyo intaas experience-ka dadku ay experience gareynayaan yaxaaskii oo kala boobaya yaxaaskan ayaan wax ka baadhan isku weydiiyeen inuu xayawaankan yaxaaska la yiraahdo daadiisa bal wax ka baad waxyaabihii markaan baaray aad ka cajiibka ay ugu soo baxay alligators are bigger alligators are bigger crocodiles are much more smaller and alligators are not found in Africa mostly in Australia and the European countries. Hay xasku 70 ilaa 100 sano gaara uma dhinto laakiin markuu ballaadho uu cadadka jirkiisu ballaadho ayaa kansar ku dhacay deeta kansarkaas buu dhintaa yaxaasku wuxuu cunto la'aan noolaan karaya waqti dheer yaxaaskii ugu dheeraay ee la eegay intuu noolaan karayo cunto la'aan muddo sanada ayuu ku dhintay yaxaaska bishiiba hal mar ayuu cunaa deeta liqitaankiisa ilkaan waaweyn iyo waxyaabahan waaweyn wuxuu ku liqaa laakiin waxba kuma calaliyo cuntada inta badan wuu cashada waa xayawaanka cala cashada bishiiba hal mar haduu wax cuno intaas ba ayaa ku filan marar badanna social media aad baan u jeclaysanayay marka experience-ka aan helay waxa kamid ahaa inaan yaxaas arkay sidoo kale markaan yaxaaska arkaysid ama daad arkaysid xayawaan uu Ilaahay sameeyay oo du fiirsatid khalqiga Ilaahay aad ka dhex dhadhaminaysid iyo weyniduu Ilaahay leeyahay dhadhan kale iyo dhadhan kale ay ku yeelanaysaa marka iimaanna waa iga soo kordhay oo waxyaaba iimaanka aad kaga koray ayay kamid ahayd inaan yaxaas arko
sidoo kale waxaan arkay halgari oo aan cunto siiyey waxoogaa cunto yar meel lagu iibinay ma ka qaaday cuntadii ma siiyey. That was amazing experience ma sha Allah. maalintii ku xigtay waan ka soo noqday. buugan aan akhriyay ama aan dhageysanayay bishan waagii hore buugaag badan baan akhriyi jiray oo week kasta buug baan akhriyi jiray laakiin akhriskaygii hadda waan yareeyay waxaan idhi warsamow one book at a time, one day at a time, one task at a time. hal buug iyo hal maalin, hal buug iyo hal bil inaan qaato. marka bishan buugan dhageysanayay akhriyayna waxaa la yidhahdaa Get Things Done. waxaa qoran in la yidhaahdo David Allen oo nin Maraykana oo manager ka jiray shirkadka waaweyn ee dalka Maraykanka. buugan wuxuu kaga hadlayaa waxa nolosheena distraction ku sameeya oo nolosheena dabqiya fikrado badan. waxa nolosheena aan sameynaa waxyaabo oo dhan maskaxdeena uma sameysna inay fikradaha xajiso laakiin maskaxdeena waxay u samaysan tahay inay fikradaha samayso. buugga markaan dhageystay waxyaabo aad u badan bay iga baxay. projectyo badan oo ii furnaa ayaan waqti yar oo fudud aan ku dhameeyay. marka qaacidadu kaga hadlaya buuggan maxaa kamid ah? qaacidada koowaad ee kaga hadlaya waxa weeyaan inaad fikrad kasta oo kugu soo dhacda aad capture gareysid oo qabatid. marka inaad second brain samaysatid ama maskax labaad. maskaxdaasi waxay noqon kartaa ama digital bay noqon kartaa inkastoo maanta digital aynu ku jirno adduunkiiba digital isku bedelay. anigu waxaan isticmaalaa app Notion la yiraahdo insha Allah muuqaalada soo socda ayaan nagula wadaagi doonaa. marka inaad capture gareysid fikrad kasta oo kugu soo dhacda inaad capture gareysid. fikradaas inaad process gareysid. waxaan is arki jiray iyadoo fikrad igu soo dhacdo fikradii ay ka qasiso. markaan helay fikrado badan oo waxa jira aanan waqti xaadir muhiim laakiin waqti xaadirkan hadda aynu joogno ama waqti xaadir hanka ay ku fikradu kugu soo dhacayso aanan muhiim ku ahayn. marka wuxuu ku leeyahay fikradii process kare oo processing ku sameey. ta saddexaad review samayso. weekii oo kale inaad xili samaysatid aad fikradahaagii iyo waxyaabihii kugu soo dhacay aad review gareysid. marka haddii aad intaa isticmaashid wax badan baa iska kaa bedeli doona. buugganna waa buug aad iyo aad u cajiiba. dhammaantiin waan nagula talinaya haddaad dhegeysan karaysaan iyo haddaad akhriyi karaysaan. shirweynihii 10,000 ee qof ay ka soo qayb galeen ee ka dhacay magaalada Kigali maxaan kula soo kulmay run ahaantii vlog ama documentary ayaan ka soo diyaariyay wadanka Rwanda gaar ahaan magaalada Kigali haday noqoto shirki iyo haday noqoto memorialki ama xusuuqii ka dhacay iyo maxaynu ka baran karaynaa laakiin se waxaan rabaa inaan muuqaalkan nagula dul istaago maxaan ka bartay madaxweyne Paul Kagame iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya oo joogay shirka waxay ahayd experience cajiiba oo aanan filanayn markii hore oonan islahayn waad helaysaa waxaan ka qayb galay madal ay isugu yimaadeen 10,000 oo dhalinyaro oo ka yimiday Afrika wadamadeeda kala duwan haday bari iyo galbeed iyo koonfur iyo meel kasta haday noqoto 10,000 ee dhalinyaradii waxay hayeen activities waxay hayeen entrepreneurs ganacsatada hayeen waxay hayeen social activities fahayeen waxay hayeen nolosha qaybaha kala duwan bay ku kala jireen run ahaantii markaad ka baxdid circle-kaaga aad ka baxdid wax badan baad baranaysaa 10,000 ee dhalinyarada wadankan Rwanda madaxweynaheega Paul Kagame ayaan sidoo kale Allahu musta'aan qudbadiisii iyo madashii ku soo qayb galay ayaan ku kulanay ama waxoogaa horteeda 2 mitir meelaas buu jiray horteedu fadhiyay si fiican bay noo soo dhaweeyeen experience aad u fiican oo dhadhan fiican ayaan ka soo helnay marka waxyaabahan ku soo arkay waxa aad ka wajiibka ah ama shirkaan oran karayo waan ka soo bartay madaxweynaha laftigiisa ninkani waa nin cajiiba wadankan buu muddo 28 sanadooda ayuu transformation ka inta leeku sameeyay from zero to hero inay noqdaan Singapore to Africa inay dhisaan wadooyin iyo facility iyo meel xataa dadku ay ku hamiyi karayaan inay isugu yimaadaan ninkan waa nin cajiiba ninkan maxaa laga baran karaya marka waxyaabahan aadka u dhuuxayay waxa kamid ah qudbadiisii waan joogay waan dhageysanayay sidoo kale waxaan ku ceshaday mar labaad oo muuqaalkiisii mar labaad ayaan ku ceshaday waxyaabo cajiib ah iga soo baxay Allow me to leave you with this piece of advice. Hard work, even if it is smart work as well, without purpose is not fulfilling. Therefore, we must also bear in mind, and all that driven in our minds by having a purpose. May I add that with that purpose, you can add a little bit of discipline. Discipline guides us, measures, and lets us know the excesses we have to deal with, whether personally or at the level of society.
markii ugu horeysay khudbad buu bixiyay oo dhalinyaradii buu dhiirigelin u jeediyay markii labaadna panel bay fadhiisteen isaga iyo madaxweynaha ku-xigeenka dalka Kenya oo isna aad iyo aad ula cajiibaya oo waxyaabo badan ka bartay waxyaabaha uu Paul Kagame uu kaga hadlay panelkiisa waxa kamid ah inuu qofku discipline yeesho inuu naftiisa ka adkaado I think meelo badanna waan ku arkay oo aad waan ku arkay qofku hadii uu naftiisa ka adkeen hadii uu sameyn waxa uu muhiimka hadii uu ka tagin waxyaabaha maalayacniga ee noloshiisa aan waxba ku kordhineen wax badan ma sameyn karayo marka waxyaabaha uu ka hadlay waxa kamid ah dhalinyaroy discipline inaad naftaada ku leeylisid oo naftaada ku qasabtid waxyaabaha muhiimka nafteenu sidoo kale ma jecla in salaada subax ku kacdo ma jecla in wax akhriso ma jecla in waxyaabaha muhiimka qabato maanta dhan waxa iska jeceshay in TikTok iyo Instagram Reels iyo social media qaybihiisa kala duwan ay iska dhex socoto way adag tahay inaad wax barato way adag tahay inaad fariisatid marka waxyaabaha ka hadlay aadka u jeclaysto waxa kamid ah inuu yiri naftiina ka adkaado oo discipline sameeya oo dhalinyarada naftiina ka adkaado arinka labaad ee cajiibka uu ka hadlay waxa kamid ah waa aragnimadu daada kuma xidna waa aragnimadu waxay ku xirantahay qofku wuxuu sameeynayo hadii maanta aanad sameeyn inaad gaari baratid oo aanad isku dayin inaad gaari baratid gaariga ma baran karaysid hadii aanad maanta isku dayin dabaal inaad baratid waxa dhici karta qof ka weyn inuu dabaashi karin laakiin adigu aad dabaashad garanaysid waxaad ku baranaysaa in maaha book iyo qalin maaha way aragnimada wax lagu helayo wuxuu yiri waa sidii qof dabaalanayo kale dabaashan waxaad ku baran karaysaa waxa weeyaan inaad naftaada aad biyo ku dhex turtid markaad biyo ku dhex turtid dabaashood baranaysaa ku celcelis maalinta ugu horeysa way ku liqayaan taasba way aragnimo lagu helaa marka marar badan tiyariye badan iyo aqoon badan iyo waxyaabo badan oo maskaxdaada ka dhex guuxaya waxa dhici karta inayna faa'iido weyn ayna noloshaada ku keenin waxa muhiim ah waxaad sameynaysid practical day after day week after week hadii aanad shakhsi ahaan koreen hadii aanad iimaan ahaan koreen hadii aanad xiriir ahaan koreen hadii aanad qofkaad ahayd aanad ka fiicneen waad kaanaysaa aad iyo aad baan uga helay arinkaasna waa arinkii labaad ee iga dhex baxay khudbadii madaxweynihii Paul Kagame arinka saddexaad ee cajiibka uu ka hadlay waxa weeyaan inaad sameeysid waxa tiraahdo waan sameeynaya ilaahayna waa quraankiisa kaga hadlaya ee ya ayyuhalladina aamanu lima taquluna ma la taf'alun marka marar badan nafteena waxaynu u sheegnaa oo inuu ilaahnaa bari waxaas ma sameyn doonaa kaas ma sameyn doonaa deeto nafteeni ma sameyno waxyaabiino muhiimka marka wuxuu yiri do the talk waxa tiraahdo samee muhiimaduna waa taas hadii aad aragtid dad yow ama wadamo ama wax farqi u dhaxaynaya waxa weeyaan waa qof wuxuu yiraahdo waan sameeynaya iyo qof aan sameeyno boqol maanta uu jaban yahay inaad hadashido tiraahdo waxaas baan sameeynaya laakiin say inaad wixii sameeysid oo wax u baahan inaad qiimeeyga bixisid marka nolosha wax walba qiimeyn ay naga fadhiyaan inaad sameeysid waxa sameeysid aad baan u jeclaystay saddexda qodob ee muhiimka hadii aad noloshaada u isticmaashid wax badan baa iska bedelay noloshaada wax badan baa iska bedelay maalintan soo noqday intii ka dambeysay saddexda qodobna from bottom of my heart baan soo qaatay nolosha waxa aad u muhiima inaad waxa adiga kugu dhacaya kaliya wax ka baratid ma waa inaad wax ka barataa sidoo kale waxa dadka kale ku dhacaya taasina waxay ku siinaysaa inaad leverage kareysid oo saameyn weyn aad sameysid waayo bilaadan baynu nahay cimrigeenu kooban yahay waa aragnimadeenu way kooban tahay marar badan waxa muhiim ah inaad dadka kale guushooda iyo guuldaradooda wax ka baratid taasna waxay ahayd waxyaabihii muhiimka ah aad ka soo miirtay khudbadii madaxweyne Paul Kagame sidoo kale waxa arin cajiib oo aad iyo aad igala soo baxday oo aan aad uga murugooday madaxda Soomaaliyeed ama deegaanada Soomaaliyeed marar badan ma arko dhalinyarada iyagoo aad u dhiirigelinaya madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya dhalinyar badan soo kaxaystay oo wadankan Kenya dadkii meesha joogay like a crane bay hayeen hadii meel kasto laga yimiday waxay hayeen dadkii hadii aqoonta noqoto hadii ka dhaxadada sida fiican uga dhaxalay marka wuxuu soo kaxaystay dhalinyaro badan oo aad u badan ayuu soo kaxaystay. It is for that reason that we are here today to join the youth of Africa to tell you in a nutshell, you are the future of this continent. We want to tell our young people that the people of this continent, especially the elder population, is in your hands. You have what it takes to take this continent to the next level. dhalinyarada ayuu si daacad u la hadlay ku yiri dhalinyaro wax baad qaban kartaan wax baad noqon kartaan cidna kaama xigto wax kastana waad sameyn karaysaa marka dhinacu ka istaagay waxa kamid ahaa in hadii miiska wada hadalka
haddii aanad adigu marka hore damaca soo yeelin haddii aanad adigu isku soo dayin inaad soo challenge garayso oo challenge-ka aad soo samayso oodnad miiska iman cid haba yaraatee ku maqan ma jirto marka dhalinyarada Soomaaliyeed deegaan walba ha degto shanta Soomaaliyeed meesha doontaba ka degtay inay siyaasadda iyo meelaha ay wax ka jiraan ay galaan arrinkaas baa aad iga dhaxbaxay oo ka faa'iiday waayo mar kasto meel tago kaliya ma hadda inaan naftayda kaliya soo socdo ummad baa iga dambaysa ummad ayaa iga dambaysa wax kasto gudbinaya ama fariin kasto gudbinayayna waxay muhiim u tahay qofka dhalinyarada ee maanta wadankeena ku dhex koraya qofka dhalinyarada ee maanta qurbaha jooga inuu ogaado Allah musta'aan sidoo wadankiisa iyo dadkeena maanta kala daadsan ugu soo noqon lahaa markaan arkay wadamada Afrika dhalinyaradoodii oo dawladahooda soo abaabulayaan markaan arkay dhalinyaro is haysta oo maasha Allah wallahi waan qalbi xumaaday oo aad baan uga xumaaday inkastoo ku joognay dhalinyaro Soomaaliyeed laakiin dhalinyaro iyagu gaarkooga isku soo direebay haayeen gaarkooga inay uga soo qayb galaan gaarkooga network u yeeshaan marka waxyaabo badan baad dareemaysaa oo dhammaan deegaanadii Soomaaliyeed haday Djibouti noqoto haday deegaanka dawlad deegaanka Soomaalida noqoto haday Kenya noqoto Soomaalida haday Soomaaliland noqoto cid dawlad soo dirtay oo dawlado soo diray ma jirin baad marka waxyaabahan aad ka u jeclaysanay waxa kamid ahayd in shirarka dambe haday ay dhacayaan haday madaxda Soomaaliyeed ay xagan iga daawanayaan waxaan aad ugu dhiirigelinayaa in dhalinyarada shirarkaas oo kale aad ugu soo taabashayaan inay ka soo bixiyaan qarashkooda inay dhalinyarada ku yiraahdaan la falgala oo Afrika maanta horumar bay u socotaa Afrika maanta indhahaygan ku eegay Afrika markii hore way isbedeleen wallahi markaan tagay shirkaas inaas baan ku soo koobnaa muuqaalkeeni insha Allah waxaan rajaynayaa dhamaantiin guul dhamaanteen waxaan u baahanahay qof in dhiiri geliya qof in challenge karaya qof inagu taageero waxyaabaha aynu nolosha rabno haddii aanad adigu qofka helin adigu qof u noqo haddii aanad adigu qofka helin adigu naftaada u noqo